24 bishii May ayay ku soo xaroodeen xeradan hadda aan joogno subaxeedii hore tababarkuna isla markaas uu bilowday runtii raggan badankoodu rag xaasliyaal ay u badan yihiin qofna kama dhaqaaqin 3 bilood bartaasi joogeen 3dan macallinna waa la hoydaan ayaguna taliyaashu waa 3 bay ahaayeen waa Xasan Yare iyo Dalooliye ninka la yiraahdo iyo xaqodood ninkaas waa 3daas taliye ahaayeen runtii joogista ciidanka qaybta ugu weyn iyaga lahaa iyaga aan dhaqaaqin tagin ciidanka uu helinayay dhiirigelinayay tababarkana dhinacooda uga jiray ma aan iskalamaysi weynayn tababarka waxa hadda ka dambeeya waxaan rabnaa madaxweynaha iyo dawladda galmudug ciidan qaran oo galmudug leedahay weeye in la wareego shaqada meeshii looga diro ayay diyaar u yihiin soo sidaas ma ahayn wasiir waa mahadsan tahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa taliyayaasha iyo macallimiinta soo tababaray ciidanka iyo taliyayaasha ka ah oo macallimiinta uga hooseeyey waxaan leeyahay waa ciidan galmudug meel gaar ugu qoran ciidankan waa ciidankii daraawiishta galmudug xareyntiisa laga bilaabay kana gaaray guul galabta noo muuqata oo u tababartay si dhammaystiran dad baa markay tababarka galaan meel dhexe wax uga kala lumaan tababarka dhammaysan waaya adkaysan waaya waxaad marteen tijaabadii ugu sarraysay oo ciidanka daraawiishta galmudug ay maraan waa furihii ugu horreeyey oo tababar lagu bilaabay ee daraawiishta galmudug lagu bilaabay kana lib keenay ayagoo tiradoodiiya oon cidna ka bixin meel aadin sida wasiirku sheegana xitaa aan fasax qaadan waxaad noo tihiin iyo ku dayasho dhammaan ciidamada galmudug ayaa u tihiin annagana taxgelintiinna aad mudan tihiin ayaan idin siinaynaa haddii la yidhaahdo waxaan hubnaa oo kale cadowga la dagaalankiisa iyo ka hortagga dembiyada inaad si gaar ah ugu dhiiran tihiin si gaarana uga duwan tihiin dadka maxaa yeelena waxaad tihiin soo arkay dhib soo maray wax u kala soocan yihiin shaqo barad aan ahayn dagaalka iyo cadowga la dagaalankiisa aysan u ahayn barasho u ahayn geesiyaal hoollate soo tijaabiyey sidaas darteed waxaad bilow u tihiin xoraynta cadowga galmudug bilow waa sida wasiir fiqi sheegay waa la hubaa meesha aad aadaan kontonkiinan inaad ka hawl badan tihiin ugana xoog badan tihiin 500 oo intaad soo marteen aan soo marin waxaanba galmudug u baahneed dadkii yaqaanay iska cadowga iyo sida la isaga qabto in la howlgeliye mar walba ciidan cusub oo tijaabaha dhalinyaro lagu tijaabiyo waa uga horeysaan waana uga aqoon badan tihiin waana in kalsooni badan nahay waxaan rabnaa sida aad tababarkiina uga soo baxdeen ood u qaadateen tababar waqti adag bilow ah cid idinkaga horreyn galmudug aad u bilowdeen saad u qaadateen inaad dagaalanka cadowga iyo adkaysiga iyo dishibliinkana u qaadataan waxay noo tahay runtii dafcadii koowaad ee guul soo hoysay galmudug oo tababarkii koowaad ka soo baxday ciidamo kale oo tababar ku jira oo aad u ballaaran oo galmudugna ogtihiin inay jiraan mar dhowaad waajibaad iyo shaqo la qaybsan doontaan laakiin mar walba waxaanan hilmaamayn furihii iyo bilowgii iyo guulka gaaristaad samayseen mar walba waa ka duwantihiin ciidamada insha allah